qofkii raadiyo inuu qof ka aargoosto isaga ayaa dhaawiciisii isku sii siyaadinaya dadka daciifka ah way aargoostaan, dadka strongiga ama awoodda leh way cafiyaan, dadka caqliga badan way iska indhatiraan. Ha ku luminin waqtigaaga aargoosiga kuwa ku xumeeyey, kuwa ku dhaawacay. aakhirka iyagaa wajihi doona cid dhaawacda. mar walba aad iska yarayso ihtimaamka aad siinayso inaad ka aargoosato, waa mar walba oo ay sii siyaadayso adna farxadaada. naftaada u ballanqaad in aad ahaanayso mid niyad ahaan u xoogan oo aanay waxba carqalad iyo iscaajtoona aysan ku keenaynin farxadda gudahaada. mararka qaarkood aargoosiga ugu fiican waa dhoola caddayn fudud si ay u ogaadaan inaysan saamayn ku yeelan noloshaada, wax walbana ay ku wanaagsan yihiin. balse cafiska ayaa ka wanaagsan aargoosiga. cafiska waa tilmaamaha dadka wanaagsan. markii caaisha radiallahu canha ifkiga lagula kacay ayuu abubakar radiallahu canhu maqlay raggii sii faafinaya inuu ka mid yahay habreedkii saxaabigii mistax uu isagu biili jiray, nafaqayn jiray, wax walba u qaban jiray, weliba gurigiisi ku noolaa. uu ka mid yahay ragga sii faafinaya arrinka ifkiga ee caaisha radiallahu canha. abubakar radiallahu canhu wuu ka xumaaday, wuuna ka carooday ilaa ilaahay uu aayad qur'aana ka soo dejiyey laguna leeyahay waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yaqfira allahu lakum wallahu qafuurun raxiim. sidaas ayuuna abubakar radiallahu canhu ku cafiyey. mararka qaarkood waxaa ku dhaawacaya oo dhibaato kuu geysanaya dad aadan ka filanaynin. marka tilmaamaha aan soo sheegnay bay u kala baxaan dadka aargoosta iyo dadka aana aargoosanin. laakiin aargoosiga ayaa tilmaamaha dadka qalafsan oo qalbiga adag. markii aad bilowdo inaad muhiim siiso dadka in ka badan naftaada, yacni wax walba aad u hurtid dadka kale, ogow sidaas ayaa lagaaga guulaystay. aargoosiga ugu fiican waa inaad horey uga sii socotid, ka gudubtid oo sii wadid guulahaaga. weligaa qofna ha siinin ku qanacsanaanta daawashada dhibkaaga. markay dadka khaldan dhibta ku abuuray noloshaada ka baxaan ayay kuu bilaabanaysaa nolosha saxda ah ee wanaagsan. aargoosiga ugu wanaagsan ee dadka ku xumeeyey waa inaad tustid inaysan mas-uul ka ahayn hadda sababta ka dambaysa dhoola caddayntaada. waxaan idinka tegayaa dhammaantiin fi amaanillah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.